dugsiyada nuuraddiin iskuulis. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada dhammaan ardayda fasalka afraad waa mar kale iyo xalqadeennii labaad iyo maadada cilmiga bulshada. waxaynu ardayda soo bilownay toddobaadkii hore ama casharkii hore cutubka afraad oo ku saabsanaa arrimaha diinta islaamka ayaa uu ka warramayay. waxaynu soo qaadanay taariikhdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka mid ah ayaa casharkeenna hore aynu kusoo qaadanay. maantana waxaynu sii wadi doonaa casharkeennii iyo isla cutubkii ayaa inoo sii socdaa. casharkeenna maantuna arday waxa uu ka bilaabmi doonaa halkan buu inooga bilaabmi doonaa tiirarka islaamka. tiirarka islaamka ayaa casharkeenna maanta uu ka warramayaa. shay kasta waxa uu u baahan yahay tiir. shay kasta waxa uu u baahan yahay tiir si uu u taagnaado. guri marka la dhisayo sees adag iyo tiirar dhaadheer ayaa loo sameeyaa. sees adag iyo tiirar dhaadheer ayaa loo sameeyaa. haddaba diinta islaamku tiirar adag ayay leedahay, waana 5 tiirarka ay leedahay diinta islaamku waa 5 tiir ayaa ay ku taagan tahay. markaa 5taa tiir haddii la waayo diintiina ma taagnaanayso, sida haddii gurigaba tiirarkiisii mid ka mid a haddii laga saaro aanu gurigii u taagnaanahayn. 5ta tiir ayaa aynu markaas leegaynaa. tiirka koowaad ee ugu horeeya waa ba. tiirka koowaad waxa weeyaan waa in aad qirto in kelinimada amba kelinimada eebe cid xaq lagu caabudo oon isaga ahayna aanay jirin. waa inaad qirtid kelinimada ilaahay, waa inaad qirto cid xaq lagu caabuda oo aan isaga ahayna aanay jirin. sidoo kalena waa inaad qirto in maxamed yahay rasuulkii uu eebe soo diray. nebi maxamed naxariis iyo nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee inuu yahay rasuulkii markaa eebe uu soo diray. qodobkaasi arday waa qodobka koowaad, waana tiirka koowaad ee diinta islaamka markaa lagu soo galo. waa inaad qirto inaanu jirin ilaah xaq lagu caabudo ilaahay mooyaane, sidoo kalena nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay rasuulkii ilaahay uu soo diray. tiirkaasi markaa waa tiirka koowaad, waana tiirka ugu horeeya ee lagu soo galo markaa diinta islaamka. qodobkeena labaad waa ta'da ama tiirka labaad ee tiirarka islaamka ayaynu gudbaynaa. waa inaad tukato 5 salaadood. waa inaad tukato 5 salaadood ee subax, duhur, casar, maqrib iyo cishaa amba cishaa'i. 5taa salaadood waa inaad tukatid. waana tiirka imisaad baynu nidhi? waa tiirka labaad ee markaa tiirarka islaamka. tiirkaasina markaa wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo oo markaa lagu dadaalo, waana tiir aad iyo aad u muhiima. tiirka saddexaad ee tiirarka islaamku waa in aad soonto bisha barakaysan ee ramadaan. waa inaad soonto bisha barakaysan ee ramadaan. waa inaad soonto. marka ilaahay baa nagu waajibiyey bisha barakaysan ee nagu soo dhow, hadda ilaahay caafimaada nagu gaarsiiyey. waa in markaa bisha ramadaanna aada soontid. waa tiirka saddexaad ee islaamku uu ku taagan yahay. tiirka afraad baynu gudbaynaa ardayow. tiirka afraad ee tiirarka islaamku ku taagan yahay waxaa ka mid ah, waxa weeyaan tiirka afraad in la siiyo masaakiinta iyo dadka faqiirka ah sekada. waa in sekada la siiyo amba itaa zakaa, sekada oo la bixiyo weeyaan markaa
tiirka afraad ee tiirarka islaamku waa sekada in la bixiyo. waxaynu u gudbanaa ardayay tiirka shanaad ee ugu dambeeya tiirarka islaamka. waa tiirkaas waa in xajka la aado hal mar cimriga. hal mar intuu qofku nool yahay hal mar waa inuu aado, marka xajka waa inuu aado, waa haddii uu awoodo weeyaan. waa in xajka la aado, waa in xajka la aado macnaha la tago hal mar cimriga. intuu qofka cimrigiisu uu nool yahay hal mar ayaa ku waajibay inuu tago haddii uu awoodo qofku, waa haddii uu awoodo. shanta tiir arday waxa weeyaan tiirarka islaamka, waana tiirarka islaamku uu ku taagan yahay. haddii tiirarka la waayo macnaheedu waxa weeyaan tiirarka haddii la waayo islaamnimadii qofku markaa ma noqonayso mid dhammaystiran, noqon mayso, amba islaamba qofkii noqon maayo haddii tiirarka la waayo. waayahay waxaynu u gudbaynaa arday casharkeena qeybta labaad eanu maanta qaadanayno oo ku saabsan tiirarka iimaanka. waxay ku saabsan yahay tiirarka iimaanka. iimaanku waa qeyb aada u muhiim ah oo ka mid waa qeyb aada u muhiim ah oo ka mid ah lafdhabarta oo ka mid ah lafdhabarta diinteenna. lafdhabarta diinteenna islaamka qeyb muhiima oo ka mid ah weeyaan markaa tiirarka iimaanku. tiirarka iimaanku waa kuwan hoos ku qoran. hore waxaynu soo aragnay tiirarka islaamka oo 5 ahaa. iminkana waxaynu arki doonaa tiirarka iimaanka ayaa aynu arki doonaa tiradooda iyo markaa inta ay kala yihiin ayaa aynu casharkana ku arkaynaa. waay tiirka koowaad markaa waa kan. tiirka koowaad waa in aad ilaahay rumayso. tiirarka islaamka tiirarka iimaanku waa 6 tiir. waxaana ugu horeeya kow in aad ilaahay rumayso, aliimaanu billaah, inaad ilaahay rumayso. tiirka labaad ee tiirarka islaamku waa kan, waa inaad rumayso malaa'igta eebbe abuuray. malaa'igtu ilaahay abuuray inay jiraan oo makhluuq ilaahay abuuray ay yihiin oo aynaan inagu arki karin, waa inaad markaa aada rumaysid. waa tiirka labaad ee tiirarka iimaanka. tiirka saddexaad ee tiirarka iimaanku waxa weeyaan in aada rumayso dhammaan kutubta eebbe ku soo dejiyey nebiyada. waa inaad rumayso dhammaan kutubta eebbe ku soo dejiyey markaa nebiyada. nebi kastoo ilaahay uu soo diray waxa uu ku soo dejiyey markaa kitaabo. markaa kitaabada intii laynoo sheegay ee markaa qur-aanku inoo sheegay ama xadiidku inoo tilmaamayna waa inaad rumayso kutubta ilaahay uuna soo dejiyey oo ay yihiin kutub xaqa. maxaa ka mid a kutubta? waxaa ka mid a kitaabka nebi maxamed la siiyey, kitaabkeenna alfurqaan ee kitaabka qur-aanka ah. waxaa ka mid ah kitaabkii la siiyey markaa nebi muuse ee towraat. waxaa ka mid ah kitaabka la siiyey markaa nebi daa-uud ee zabuur la odhan jiray. waxaa ka mid ah kitaabka markaa amba suxuf ibraahim oo muusa, kitaabadii la siiyey nebi markaa muuse iyo haaruun, nebi muuse la siiyey iyo haaruun. kitaabadaas markaa iyo kuwa kale la midka ah waa in aad rumayso markaa. tiirka afraad baynu u gudbaynaa. tiirka afraad ee tiirarka islaamku waa kan, waa inaad rumayso dhammaan nebiyada uu eebbe soo diray. waa inaad rumayso dhammaan nebiyada uu eebbe soo diray. nebiyadu ilaahay soo diray oo dhanna waa inaad rumayso. nebiyo fara badan buu ilaahay soo diray, laakiin qur-aanka waxaa laynoogu sheegay 25 markaa nebi. 25ka nebi iyo kuwa kale faraha badan ee ilaahay uu soo dirayba waa in aad rumayso. tiirka shanaad baynu tegaynaa. tiirka shanaad ee ka mid ah tiirarka iimaanka
tiirka shanaad waxa weeyaan waa inaad rumayso maalinta ugu dambeysa ee aakhiro waa inaad rumayso maalinta ugu dambeysa ee aakhiro waa maalinta adduunyada u dambeyn doonta ee alyawm alaakhir la yidhaahdo maalinta waa inaad rumaysid taasina waxay ka mid tahay tiirarka iimaanka waana tiirka shanaad waxaynu u gudbaynaa markaa ardayga tiirka lixaad ayaynu tegi doonaa ee tiirarka iimaanka ka mid ah tiirka lixaadna waa kan waa in aad rumayso qadarka waa inaad rumayso in shay kasta dhib iyo dheefba ay ku dhacaan amarka eebe amba amarka ilaahay waa tiirka lixaad ee ugu dambeeya waa maxay waa inaad rumayso qadarka oo amba shay kasta dhib iyo dheef inay ku dhacaan amarka eebe haddii wax wanaagsan aad hesho oo shay wanaagsan aad la kulantidna waa qadar ilaahay uu kuu qoray oo qadarka ilaahay baad kula kulantay haddii shay dhib leh iyo musiiba ay kugu dhacdo sida geeri oo kalena iyadana waxa weeyaan qadarka eebe oo wax ilaahay uu qoray weeyaan shay aanu ilaahay qorinna adduunka iyo kownka markaasi kama dhacaan sidaa awgeed waa inaad rumaysid tiirka iimaanka ee lixaad marka halkaa waxaynu ku tilmaanay 6 tiir oo ah tiirarka iimaanka ayaynu halkan ku tilmaanay ardayay 6 tiir oo ah tiirarka iimaanka ayaa halkan aynu ku tilmaanay 6dan tiir aynu tilmaanay waxa ugu horeeyay in aad ilaahay rumayso ayaa ugu horeeyay inaad ilaahay rumayso tiirka labaad wuxuu ahaa inaad rumayso malaa'igta uu ilaahay abuuray dhammaantood waa inaad rumayso tiirka saddexaad wuxuu ahaa inaad rumayso dhammaan kutubta eebe kusoo dejiyey amba ilaahay kusoo dejiyey nebiyada kutubta inaad rumayso aliimaanu bilkutubna waxa weeyaan markaa waa tiirka saddexaad ee iimaanka tiirka afraad aynu tilmaanay waxa weeyaan in aad rumayso dhammaan nebiyada uu eebe amba ilaahay uu soo diray dhammaan nebiyadu ilaahay soo diray waa inaad rumayso markaas oo aad inay dhammaantood yihiin nebiye markaa ilaahay uu soo diray tiirka shanaad ee aynu tilmaanay waxa weeyaan in aad rumayso maalinta ugu dambeysa ee aakhiro aliimaanu bilyowmi alaakhir maalinta ugu dambeysa ee aakhiro maalinkaasna inuu jiro oo uu xaq yahay waa inaad markaa rumayso tiirka ugu dambeeya ee aynu tilmaanay ee tiirarka iimaanka ka mid ah waa inaad rumayso qadarka wixii ilaahay uu qadaray khayrkiisa iyo sharkiisaba waa inaad rumayso ood ku qanacsanaato in shay kasta dhib iyo dheefba ay ku dhacaan amarka eebe amba amarka ilaahay inay ku dhacaan waa inaad rumayso halkaa waxaynu ku sheegnay markaa tiirarka islaamka ayaynu ku barannay iyo tiirarka iimaanka ayaanu ku baranay markaa qaybta hore waxaynu ku barannay tiirarka islaamku inay yihiin 5 tiir ayaanu ku barannay qaybta labaadna waxaynu ku barannay tiirarka iimaanku inay yihiin markaa iyaguna 6 tiir oo la yidhaahdo arkaanuliimaan kaa arday waxaynu u gudbi doonaa oo arday waliba uu ka shaqayn doonaa markaa layliskan halkan horteena ku yaala ayaa arday waliba isku dayi doonaa inuu ka soo shaqeeyo waxqabadka saddexaad su-aasha koowaad waxaa lagu yihi sharax ka bixi tiirarka islaamka waxaad sharax ka bixinaysaa tiirarka islaamka ayaad sharaxaysaa sharax ka bixi tiirarka islaamka ayaad sharax ka bixinaysaa sharax ka bixi tiirarka islaamka su-aasheenna labaad waxay noqonaysaa sharax kooban ka bixi tiirarka iimaanka sharax kooban ka bixi tiirarka iimaanka ayaad ka bixinaysaa sharax kooban su-aasha saddexaad aad kasoo jawaabaysaa arday waxa weeyaan sheeg 7 nebi sheeg 10 nebi naxariis iyo nabadgelya korkooga ha ahaatee waxaad sheegaysaa 10 nebi ilaa 25 nebi ayaa qur-aanka leenoogu sheegay marka waxaad qoraysaa 10 nebi
oo ka mid ah nebiyada markaa ama rususha ilaahay uu soo diray ayaa tilmaamaysaa. su-aasha ku xigta arday waad ka soo shaqayn doontaa waxa weeyaan magacow afarta kitaab ee ilaahay ku soo dejiyey nebi magacow afarta kitaab ee ilaahay ku soo dejiyey afarta kitaab ee ilaahay ku soo dejiyey nebi ciise. waxaad sheegaysaa nebi ciise kitaabkii lagu soo dejiyey magaciisa ayaad soo sheegaysaa. waxaa kalood qoraysaa kutubtii lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaam kitaabkii lagu soo dejiyeyna waad qoraysaa. waxaa kalood qoraysaa nebi ibraahim calayhi salaam kutubtii markaa lagu soo dejiyey. waxaa kaloo aad sheegaysaa nebi daawuud calayhi salaam kitaabkii lagu soo dejiyey magaciisa iyo nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee kitaabkii markaa lagu soo dejiyey magaciisa. markaa 5 su-aalood ayaa qof waliba uu ka soo jawaabi doonaa. su-aasha koowaad waxaanu nidhi sharax kooban ka bixi tiirarka islaamka. su-aasha labaadna sharax kooban ka bixi tiirarka iimaanka. su-aasha saddexaadna sheeg 10 nebi naxariis iyo nabadgelya korkooga ha ahaatee. su-aasha saddexaadna amba su-aasha afraad magacow afarta kitaab ee ilaahay ku soo dejiyey nebiyadan. afarta kitaab ee ilaahay uu soo dejiyey kitaabkii lagu soo dejiyey nebi ciise calayhi salaam iyo kitaabka lagu soo dejiyey nebi muuse iyo kitaab lagu soo dejiyey nebi ibraahim iyo kitaabka lagu soo dejiyey nebi daawuud iyo kitaabka lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. su-aalaha arday waad ka soo jawaabi doontaa. waxaynu maanta halkaa ku baraynay markaa 2 cashar baynu ku baraynay amba 2 qaybood baa cashirkeennu ahaa. qaybta koowaad waxay ahayd tiirarka islaamka ayaanu baranay. tiirarka islaamka imisaynu ku sheegnay? waxaynu ku sheegnay inay ahaayeen 5 markaa tiir inay yihiin tiirarka islaamka ayaanu tilmaanay. tiirarka islaamka oo 5 tiira ayaanu baranay. sidoo kale waxaynu baranay tiirarka iimaanka oo iyaguna ah 6 tiir ayaa aynu baranay. marka insha allahu tacaala tiirarkaas waxaa laga rabaa arday walba inuu markaa xifdiyo si fiican oo u barto. tiirarka islaamku waa tiirarkii islaamku uu ku taagnaa. tiirarka iimaankuna sidoo kale waa tiirar iyaguna islaamku uu ku taagan yahay oo muhiima. marka arday walba waxaa laga doonayaa tiirarka in sidooda uu barto. layliskaana waa laga soo jawaabi doonaa. arday waliba uu ka soo jawaabi doonaa insha allahu tacaala. cashirkeennan maanta oo ah cashirkii 2aad ee maadada cilmiga bulshada ee fasalada 4aad halkaasaynu maanta ku joojin doonaa. xiisadda ku xigta aynu halkaa kasii wadi doonaa insha allahu tacaala. inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.